sida ay maanta nagu soo gaadhayaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda colaadeed ee ka taagan gobolka Awdal, ciidanka militariga Somaliland ayaa hal gaadhi iyo hal qof ku soo qabtay howlgal ay ka sameeyeen agagaarka buurta Osali, halkaasi oo fadhiisin u ah dableyda hubeysan ee dhawaan ku soo duushay dadka deegaanka. gaadhiga la soo qabtay oo la tuhunsan yahay inay leeyihiin jabhadda soo duushay ayaa hadda lagu hayaa saldhigga ciidanka Somaliland ay ku leeyihiin buurta Cuful ee duleedka degmada Gargaara Bari. inkasta oo ay weli degan tahay xaaladda deegaanadii uu dagaalku ka dhacay maalmihii ugu horreeyay toddobaadkani, haddana ciidanka Somaliland ayaa maanta howlgallo aan hakad lahayn ka wada deegaanka Sheedheer iyo deegaanada u dhaxeeya degmada Gargaara Bari iyo Geb. geesta kale, ilaa iyo shalay ma jiraan gaadiidkii dhaawaca gurayay, kuwaasi oo in ka badan 20 qof oo dhaawac ah u gudbiyay dhinaca dalka Jabuuti toddobaadkan gudihii, sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal xogogaal ah oo aanu la xidhiidhnay. marka laga yimaado baaqida bulshada iyo howlgallada ciidanka, ma jiraan dadaalo muuqda oo la taaban karo oo xal waara loogu raadinayo colaadda soo noqnoqotay ee ka jirta deegaanada xeebta gobolka Awdal, maadaama ay Somaliland ku fashilantay shirkii nabadda ee Garissa. marka aad eegto amarada xukuumaddu ay duldhigtay deegaanada xeebta iyo howlgallada ay sameynayaan ciidanku, waxay u muuqataa markan in Somaliland tallaabo militari ku baadi goobayso nabad laga hirgeliyo gobolka. balse arrintaasi adiga ma kula muuqataa tallaabo u shaqayn karta xukuumadda Somaliland oo lagu heli karo nabad? halkani waa Awdal TV oo aad mar kasta kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka.